بسم الله الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. walaalayaal waxaan rabay maantay kelimadii aan maalin lagu diray aan muduloodka iriya waxay iga soo noqdeen marka haddeed rag waa balaaye aniga haddeed waa sheegi doonaa sidii qaabkii aan maray laakiin ragga qaraabada ah oo meelo badanna kale meelo gaarana kala joogjoogo ayaa runtii xoogaa inaan masaladaas oo cudurdaar ka bixiyay igula hadleen war kelmadaan yahow anna waa u qasday nimankaasna waa ula qasday kumana xumaynayniy waxaan uga jeeday wanaagaan uga jeeday ayakuna waa fahmayaana dadka hadalka fahmo waaye iyo ujeedadiise idhaaf war annaga ama samaynayna ama haddii kale adigan sameey runtiina waa ku mahadinayaa waxa weeyaan waa dadku waxay yaqaaniin wax la yidhaahdo hadalkan haddii nooma dhahan la yaqaani nooma dhahan wax la yidhaaha yaqaani runtii marka aniga waaba ii dhahnaatay laakiin ayagu waxay yidhaahdeen marka tanazulan ayagoo maaragtay kolleyba anigoo ayaga tixgelinaya waxa weeyaan kiiskaasaan marka rabay inaan wax ka ilaahada kale ka dambeeya yacni aan wax kaga noqdo marka hore hadda waxa weeyaan adiga sida badanaaba waxa weeyaan waxaan u joogo oo aan u xiranahay oon usoo shaqaynayay oo marar badanna haddee lagu xiray marar badan mararna dilla iiga xukumay haddana aan u xiranahay waa tasxiix waay tacyiir ma waa tasxiix waay yacni ummaddan ilaahay subxaana watacaala iga dheliyey waxaan jeclahay inaan saxo wixii aan ka kari karo waay marka dee marar badanna raggaan isla soo shaqaynaynay waxa weeyaan raggii haddeed maaragtay adduunyadana waa iska dhib badan tahay waa cadaab waaye marka waxa weeyaan hadda waxbaa siya iska noqnoqdeen marka waa ujeedaan hadda maantay aniga unbaa kusoo haray oo ama u xiran macnaha marka wixii aan ka kari karo haddii intaanuba waxaan u haystaa inay waa nooc fadiilo ah ilaahay subxaana watacaala marka wixii aan ka kari karo inaan ka saxo waa saas haddaan qof maago tasxiixaasaan ujeedaa haddii aan qolo maago tasxiixaasaan ujeedaa haddaan wadaada maago tasxiixaasaan ujeeda haddaan dawlad maago tasxiix intabana waad ogtihiino qola aana taaban ma laha qola aana taaban ma jiro marka hadee dadkuna hadda waa dhici karta qola hadda maaragtay warka aan dhibsanayna ma arkin aniga warkayga waa la dhibsadaa run waaye waa la dhibsadaa oo waa saas waaye oo aniga hadde waxa weeyaan ilaa wax hadda iigu hor maaha oo anoo maaragtay bahalkii muxuu ahaa oo yaraan maaragtay aan waxaan bilaabay waxa weeyaan muwaajahadaas inaan dadka iskaga hor nimaadno waxaa iigu horreysay markii xalana aan galnay 72 markii aan xalano galnay baa ay ugu horreysay muwaajaho oo salaadii naloo diiday akaademigii sidoo kaleeto salaadii waxaba igu dhacday bay ama shaqada doona ama diinta doonaa igu dhacday dagaal adagaan ka galay ilaahay igu guuleeyey runtii taasna tii xalanana ilaahay waa igu guuleeyey sabaloolshan in la yidhaahdo oo maaragtay marka kasan kale waxa weeyaan haddana shaqadiina sidoo kaleeto oo cali samantana iskaga hornayn maxamed siyaad baraan iskaga hornayn waxaasoo dhan marka yacni dadka marka aniga wixii aan markaas khalad u arko oo maaragtay aan khalad u arko ama diini ha ahaato ama dabci kale ha ahaatee weliba khasan waxyaalaha diiniga ay ama dabcigaba waxa weeyaan dadka ugama gabado ilaahay mahadiis oo ugama haybeysto yacni waxa aan xaq u arko dadka ugama haybeysto runtii
waxaan waa qalad inaan idhaahdo kama yani weligiina saasaan aan ilaahay igu gargaar mana ku khasaaro oo sida badanaa aniguna hadda waxa weeyaan istustus iyo waxa midna ilaahay iguma magacsiinin maaragtay istustusna haba kama suuragalayn nin dhan oo weyn oo madaxweynaha iyo nin maaragtay baalkii iyo cali samantaro yani wasiir waxankii maxay ahayd wasiir koowaad ahaa oo maaragtay wasiir bahalkii muxuu ahaa oo ciidanka bahalkii muxuu ahaa kuwi jiray oo wax weeyaan waxyaalahaas oo dhan waa isla soo marnay ragga marka hadday wadaadada tahay waa sidaas oo kale waa lagu yaqaanaa maaragtay kiiskaas inaan dadka saxaan ay tahay maaragtay taas waayo waxaan xiran dawladda inaan saxaan rabaa dadka inaan saxaan rabaa qabaa'ilka inaan saxaan rabaa waxaas oo dhan marka tasxiixay aniga iga yihiin يعني النبي أنا هملي هي وهذول وحي إيمان مايو مركي هنا خطأ وايجا إيمان كرا خطأ وايجا إيمان كرا إذا غيري ورا واحد قريب مارتي كلمة دي سوا وفلار قانسة كبحضي صامن لغته كولا ما وح عن كوات كي ومبادئ دواي لكن مصالح ذا ووجد سندات كل ويجو يقاني هذا القضية شيء ويجو يقاني مصالح ذا ووجد سنة لكن مبادئ ذا مركي تهي عن مارتي بهالكي محوها لا يقلوا ذين كريم عدين كله درسيبا إلهينا وحن كرب جينينا وصول إن شاء الله تعالى إلى أن أمك قد أنت أمك قوليست الله المالتي يجعل إلى أنك قد أنت مركب واساس ولا لها مركب وحوية كنتي مركب الدين شيئا واجد كورنا وشيء يعني من كان وحوية أنا كشخصية مركب اللي قبائل مركب اللي يراه هذا أيجا يوفضل بدن أيجا يوفضل بدن صوت وحوية مالتي وحوية ayaga culimadooda aniga maartay fadli weyn u leh aniguna hadda maartay dadka ku kufriye ku kufriye marka kalimadan runtii waxaan isir maanta maxaa u reebi kartaa ilaa waxa waa u jeedaan waxa weeyaan maartay odayaan noqday maartay amrigii waa iska dhamaaday waa marka maxaa kalimada aad u reebi kartaa isir marka yani amaan iyo maartay waxaas aniga waxa weeyaan wax oo ilama ahan maartay dad wax looga taga ma amaan yani hadday mudashada waa ogolahay qofkii mutaw waa ogola waana ku amaanaya wixii ku amaanayeen sax waay marka waxaan isir wax anfaca uga tagaan isir marka waa dhici karta inaan wax ku gefo laakiin qasadkaygu saas u ah ninkii marka saas u fahmay ولو هذا أيسن أيك هذا وحوره إيجا إيمانين لكن نينكي ساس أفهمي هدد وما هتسيه هاي نينكي هذا سكر أفهمي وهذا سيد الجرتابة سيد وكلمة دي أيوة وركيو في عنا ذاتك مارتي ما لا أنت مارتي وحي الكلمة أنت كقب صدان أي دب جدينا يعني واسكاق عنه تذكرنا هذيك هذا دو ورك وقوم تلقلوا وحن تلقلا dad yaqaana kelimada xagay u jeedaa oo kelimada warka socda xaguu u jeedaa warkan maxaa looga jeeda ilaa waxaan naqaanaa annaka waxaan naqaanaa waxa la yiraahdaa caayid iyo caayashaan kala aqaana caayid iyo caayasho maxay kala yihiin waxa weeye qofka inaad caayido tiraado waxaas tahay oo nin xunaa tahay caynkaas oo kale ma qof xumaatay oo qolo xumaatay inaad saas tiraadid oo markaas aad ceebahoodii sheegtid waa shay waaye walaalow ama walaalayaalow ceebahaasaa jire iska saxa aniga caayasha ii tahay yani waa gacalow waay walaalow waxaan iska sax waxaana ciladaana kugu jirta iska sax waxa weeyaan aniga saasay ii tahay marka caayashaan u aqaanaa hadday xataa caayi ku jirto marka ceebayna waa ku jirtay sax waaye waaba sheegayba waxaa kaleeto jirtay sida runtaa waxaan kaloo ku daray yani cudurdaarkana waa ku daray horena waa uga daray gadaalna waa uga daray oo dhexdana waa uga jirtay marka saasa marka aniga sida badanaaba waxa weeyaan wax istasxiixin aan u jooga dadkana yani sida badanaaba yani inay dhinsanayaan waa ogahay warkayga waa la dhinsadaa dawladdu waa dhinsataa yani mucaaradku waa dhinsanayaan wadaadadu waa dhinsanayaan waa saas waaye yani hadda waxa laga dhinsanayo waxa weeyaan yani waxa cirbada maartay bahalkii maxay ahayd injectionka waxa loogu ama bahalka tan oo cudurrada looga hortago waxa weeyaan
maaragtay qofkaan maaragtay yani waxaa la baraarujinayaa la yidhaahdaa yani difaaca jirku waa jiraa marka asagiyaa la baraarujinaya oo waxaa lagu durayaa maaragtay yani noocii oo looga baqaayay oo daciifa aa lagu duraaya markaasuu baraarugaya marka tasxiixu saas oo kale waay yani marka qofka markii cirbada dee lagu dhufanayo waxa weeyaan waa xanuunsanaya saas waay marka warkuna waa saas waaye warkaygana waa lagu xanuunsadaa run waay waa lagu xanuunsadaa laakiin haaliban markasta ma dhahayo sida badanaaba waxay u badan tahay inaan dar alle uga jeedo dar alle inaan uga jeeday u badan tahay oo yani wanaagna aan uga jeedo wanaagga marka ama qolaan ku wanaajinaya ama qofaan ku wanaajinaya ama ummadda caamkaahan ku wanaajinaya maala haddaan qof maaragtay ataago qof ataagaan leeyahay waxaas waxa weye qofkaas uma fiicna waxa weeyaan ummaddaan uga digaya qofkaas ma fiicna saas qaladkaasuu sameeyey waxa weeyaan ummaddiyaa looga digaya isna waa loo digaa waxaa laleeyahay maarata waxaan ka noqo ama ka lex saas waaye haddaan marka kelimadii usoo noqdo kelimadan horta waxa weeya darajaadkaa usoo mara idin sheegaya awalan horta yani dad sida badan u fahmeen nimankiioo ayagoo shiraaya oo ciloos lagu hayo siyaasiya aad maaragtay aad dhabarka ka garaacday saas oo kalea dadka qaar ugu fikeraaya anigana marka waxaan u fikeraya nimankan waa fursad khatar ah oo maaragtay maanta inay isu yimaadaan oo ka shiraan oo qadaayaad maaragtay caama ka shiraan ama siyaasad ha ahaato ama ijtimaac ha ahaatay ka shiraan alla ilaah maxaa ku biirin kartaa ay ahayd saasaan marka ku fekeray fekerkii marka dee munaasabo waa ta'yiidiyo waxaan idhi maaragtay shirka aad iyo aad ba usoo dhaweeyey laakiin maxaad ku biirin kartaa waxaa ku biirin kartaa marka inaan idhaahdo niman yahow maaragtay waxyaalo badan oo inaad iska saxdaan u baahanaa jira saxda wixiyaan waa qoray waa tartiibiyey qaabkay maaragtay ay ahaayeen yani cunaawiintaa sida barta aan qortaa yani warka intiisa kale waa anaa qaabsada laakiin canaawiinta aan ka hadlaayo aan qortaa waa gartay haddana markii aan qoray waxaan sameeyey wabilaahi calay waxa weeyaan waa weysaystay 2 ragcaan tukaday ilaahay baan beriyey inuu waafajiyo waxa weeye maaragtay ila bani aadamku miskiin waaye maaragtay shaydaana carradii jooga maaragtay waxumuu kugu ridan karaa maaragtay waa khatar waaye ilaahay marka aan haddana beriyon ilaah maaragtay kelimadaa i waafaji iyo wixii khayra oo la socdo markaas waa duubay markaan duubay haddana dibaan u dhegaystay warka aniga dee waa ila fiicnaato waxaanba isiri ilaahay subxaana watacaala inuu ku waafajiya umalaynaya waa ila fiicneed yani meelaha boogahaan hontaataabtayna haddee waxa weeyaan aniga yani waxa weeya qofka inaad cillad iska sheegtid aadana sheegin daliilna aada sheegin ayaa maaragtay aan cillo u aqaana oo war caamo qofku hadduu iska sii daayo oo weliba ceeba ousan una sheegin maaragtay yani maaragtay uusan daliil u sheegin saasay ahayd markay waxyaala marka waxaa jiray oo maaragtay baalkii maxay ahayd aan u qasday inaan ayada yani aada u baraarujiyo waa ku jireen runtii oo maaragtay aan maaragtay xoogaa tacbiir oo yani qallafsan ama dii la dhihi karo aan ka cabiray waa jirta waana ugu talagalo waxaan islahaa warkaani waa in uu maaragtay yani waa inuu danqasho keeno calashaan dadkiisay isaga aruuriyaan waa saas waaye ficlan waa dhegaystay waa runtii yani qaabkaan aniga u rabay hal shay keliya amaan xusuustaa inay dhaaftay oo waxa weeyaan dee dadka markii oo wax laga sheegaayo ama ceebo la sheegaayo waa in oo la istinaado cid laga istinaado sidii reer bani israa'iil oo kaleeto soo ma jeedi oo ilaahay ka istinaaday marka qolooyin maaragtay laakiin istinahan markii uguma aana talagelinoo waxa weeye ilaa cidda dhanaan la hadlaayay marka waxa weeyaan markaasoo kalena wanaagaan u jeedi marka wax marka aan uga reebo
oo waxa weeyaan ma aanan rabin oo waxaan ba rabay maaragtay yacni kan wanaagsan iyo kan maaragtay yacni kan arrintaas ka maran iyo kulli wixii oo dhan waa ismathalaan marka tamthiilkaasaan uga jeeday inaan maaragtay kiiskaas la saxo wala maadaama aanan ceeb aanan wixii keliya aanan ka dhigin ee aan tasxiix ka dhigay waxaan rabay in maaragtay la saxo aan rabay kulli in la saxo oo la isugu tago oo nin maaragtay yacni nin weyn iyo nin yar nin magaciis iyo nin wuu la isugu tagaan rabay runtii ilaa meesha la shiraan ka jira in la qaanuuneeyaan rabay saasaan u hadlo cudurdaarka xataa waa ku daray horena waa uga daray gabaalna waa uga daray laakiin waxa weeyaan markaan dhegaystay waa ila qurxoonaaday ficlan markii xataa lagu qabsaday dibaan waan u dhegaystay waa ila qurxoonaaday soo jeedin dadkii maaragtay marka waxa weeyaan macnaha waa laga yaabaa qofka moogta isagu siduu u fikiraayo inaadan adigu aadan la socon saa u fikiraayo waa dhici kartaa sidaan maaragtay aniga uga jeedo inaad ujeedadaada inaysan maaragtay aysan aadan fiirin waa laga yaabaa laakiin aniga ujeedadaydii aan ka lahaa waxaan islahaa waa kuu gutaan islahaa warkaas waa kuu gutaan islahaa marka hadda waxaan dib uga hadlay weliba ragga waxaan ku idhi markii ay yidhaahdeen ma kelimadaas waa ka hadlaynaa waxaan idhi kelimadan cudurdaarku wuxuu keenayaa kelimadii iga fasaadaysa kelimadii waxa aan ka rabay iga fasaadaysa iga dhaaf marka laakiin haddee raggii maaragtay haddee qaraabana ah xataa culummo iyo wax walba iskugu jira waa yaraha waxaan isiri maaragtay marka macnaha waxaan uga jeedaa anigu saasaan warka uga jeeday haddii maaragtay yani xumaan loo fahmay qofkii xumaan loo fahmay waa ka raali gelinaya qofkii sidaan ugu talagalay u fahmayna waa ku ammaanaya waana rabaa kiiskaas maaragtay in la xaliyana waa rabaa oo sideediyaan u rabaa siisaskaas in la xaliyo waa rabaa laakiin waxa weeyaan yani waxa weeyaan dadka shucuurka oo maaragtay waxa ka soo baxa in oo la wanaajiyo ama mala wanaajiyo waa iska fiican tahay marka haddii xumaan loo fahmayna ha laga raalli ahaado haddii wanaag loo fahmay sidaan ugu talagalayna waxa laga qabto waxa laga qabto saasaana jeclaha aniga waxaan ugu talagalayna saas waaye aada iyo aad marka ilaahay idinkiis waxaan ka rajaynayaa runtii maaragtay maadaama aan isleeyahay ilaahay dartiisna waad uga jeeday adinkana runtii wanaag aan idin hayaaho oo waxa weeyaan waa idin jeclahay ilaahay baan u sheegaya ilaahay adinkina waa idin sheegaya waa jecla cidaan jeclahay waay sababta waxa weeyaan cid iila fadliya maba jirta asla hadda ka horna waa ragaaba igu qabsaday hadda ka hor xataa waagii fitnadii ragaa igu qabsaday maalin intaan idhi maaragtay baalkii maxay ahayd saas intaan ka cabiray tacbiirkaas maaragtay nimankaas waxa weeyaan aniga fadli igu leeyihiin caynkaas ragaa igu qabsaday marka oo yacni shir ay ahayd maaragtay arrin aan waagii aan galnay ahayd markaasa war saas ha iga soo baxsaday markaasi xoogaa raggii qaar ay marka waxaan ka gabanayana maaha waa jeclahay wanaagaadin la jeclahay waana aaminsanahay dadka haddii adigu aada wanaagsanaataan maadaama waduucitiinin dadkuna wanaagaasu gaaraya waa garanaya ilaa fadiilooyinkaas aan sheego dadki bad badan aysan dila lahayn jir marka waxa weeyaan waxyaalahaas oo dhan marka aniga saasaan ugu talagalay saasaan u jeclahay laakiin shucuurkaas maaragtay ragga qaraabadaana ay muujiyeen laga yaabo adinkana maaragtay dad saasa inay si warka ama saas loo fahmayna waa tixgelinaya oo ilaahay waa tixgelinaya laakiin kiiska asal ahaantiisu waa saas waaye waa jirta xataa maaragtay bahalkii maxal qolo maaragtay qof dad wadaad oo maaragtay ragga aan isaguna jeclahay oo ciddaa intuu maaragtay wareen maaragtay ciddii bahalkii shirkii waad ceebaysaa la yidhi ka waran markaas ma ceebayna saas shirka waa barakeeyey laakiin waxay ahayd qaladaad aan iri iska saxa bes khalaas isagiina waa iska qala marka waa saas waaye marka adigu calaa kulli xaal marka waxaan u jeedaa warkan aniga waxa weeyaan qasadka aan ka lahaa saasuu ahaa marka waxayna ku xiran tahay fahamka dadkay ku xiran weliba waxaa igu sii jirtay runtii baa idiin sheegaya yacni qofka bani aadamka ahi uma sahlana kiiskaas uma sahlana oo aniga hataa waxyaalaha oo igu qaaday waxaa ka mid ahayd runtii baa idiin sheegay dadka waxaa igu qaaday dad qof arrintaa dhihi karaa inuusan maanta inuu yaryahay
waxa kaloo igu qaaday kiiskaanu haddii qolada maanta joogta ay fahmi weydo ama ay si qaldan oo siyaasi maaragtay si qalad siyaasi ay ka fahmaan kuwa dambe inay maaragtay yacni ay ku nacfin doonaan kuwa dambe inay ku nacfin doonaan ilaa waxa weeye waa run dadka markaas joogaahi waxa weeye sidii ambiyada ku dhici jirtay dadka markaas joogaahi waxa weeyaan indha taagtaaganay kugu soo fiirinaya oo wadcigooda markaas maaragtay ayay wax ku xisaabayeen laakiin marka waxa weeyaan laakiin dadka khayrdoonka ahi ayagoo wadciga markaas jooga waxba ku aad maaragtay yani haddii laga aqbalana alxamdulilah haddii laga aqbali waayana dadka dambey wax uga tegaya dadka dambey wax uga tegaya marka waxaan is yidhi haddii xataa kuwan maaragtay ay qalad faham ay kaa fahmaan kuwa dambe oo maaragtay ayaa ku nacfin doona oo wax ka qaban doona oo kiiskaas maaragtay yani maaragtay ninkaasu sheegay waa in wax laga saxo inay dhahaan aad dhici kartaan kuwa maanta joogaha maaragtay aan kula hadla haddii iyagu maaragtay ay fahmi waayaan ama maaragtay ay maaragtay qaadan kari waayaan ama maaragtay ay la xumaato kuwa dambe ay anfici doontahay warkaas waxaan idhi yaysan adiga xaggaag yaysa kugu baaqan maadaama aan garanayay waa saas waay maalina waxaa dhacday qiso yaablaha idin sheegaya waxaa dhacday celebration october aan ku jirin marka ramadaanna waa ahay markii celebrationkii intii waa barooba ahaanaan ku jirnay marka ayaa marka waxaa la isugu kaaya yeeray saraakiishii maaragtay meeshan oo la oran jiray shirkal ofshaal markii la isugu kaaya yeeray cali samantala maaragtay kor naga magiciisiinayay marka isagaa yimid isagaa marka khudbaynaya oo wixii tasxiixii iyo wixii wey markaasaa waxaan arkay fiiriyaa bal waxaan sii sheegaya yani qaabka oo aan dhaqankayga aan tusaya waxaan arkay ramadaan waayo raggii oo dhanna sigaara la wada cabaya waana maalin waayo raggii dhanna sigaara cabaya suma jeed bas marka isagoo intaas soo kacay oo isagii u imid oo dhegta ugu saaraan taliya markii ood marka dhamaysatid inaan maaragtay hadlaan raba hay markii uu warkii dhamaysto yiri haye ninkaana yiri waa inaan hadlaan rabaa xoogaa wuxuu ku daray wuxuu sheegi doona ma ogiye waxaa weeya kiis horaa noo horreeyey bas kiiskiyaan marka aan bilaabo marka show markaan oo dhowr kalimo aan idhi adigu 6 jumlo markaa oo kale markaan idhi uu fahmay inaan ka hadlayo diin inaan ka hadlayo asuu intee soo markuu yira waa waqti kale ku siinayna hadda waa qorax kuleyle wax warkay maartay soo joojido muxuu marka sameeyay waa dacweey yani wuxuu ku dacweeyay ninkii anagana xukumo jaranka iyagii ahaa oo Ismaaciil Axmed Ismaaciil uu dacweey hor taariikhi markaasaan waa ii yeeray Ismaaciilkii wuxuu yiri ninkan madaxda maxaa ka rabta markaasaan waxaan irfiidi bas u fikrayaan ku tusaya waxay yiri nimanka madaxda soo ma khaldama haabudha hada soo lama saxiix karo haabuu yiri laakiin waad yar tahay budha waa runtiisa sarkaal yara cusub weli samuujid waad yar tahay markaasaan tiriye yaraan kuma xiree qaladkii waa dhac anna waa garanay waana kari marka kiisku marka kadib maxaa adigu marka aad u kartay maxaa u fiicnaatay miyaa marka lagu haystaa hadda marka maxaa u fiicnaatay ma lagu haystaa maxaa u garatay maxaa u kartay maxaa u tiri ma lagu haystaa asagii markaas isku xishoodo uu yiri ma saas baa raali ah ma gacankaas ma laakiin maartay nimankaana iska jeclaan lahaa inaad ka leexleexatid waxaan dadku waa wada leeyihiin dadku maartay yani waa la isaxaa waa fiiri waa markaas waay wax weeyaan waa markaan baa cusbeen waa 75 meelahaas taqriiban inay heedan malayna marka wax weyn waxyaala waxaani waa wax oo yani anigana Ilaahay subhanahu wa ta'ala dabci uu siiyay kartina uu siiyay oo maartay waxaan waa saas waa qalad waxaan hal joojiya adiga qawa
kadibna aan xil iska saarayo maadaama maaragtay ilaahay subxaana watacaala diintiina wax iga baray dabcigii wax iga baray dowladnimadii wax iga baray dadkii yacni maalkii shacbigii wax iga baray odayaashii wax iga baray dhaqankii wax iga baray waxa weye waxaan dadka maaragtay in cala alaqal xoogaa qoraalka waa la qori karaa laakiin dadku sida badanaa soomaalida waxba ma akriso nimaan maaragtay qoraalkiisa aan qaladaad badan ku jirin oo uu galayna ma jiro oo maaragtay ninka la yiraahdo cabdullaahi yuusuf aan aqriyay ninka la yiraahdo farmaajahan kitaabkiisa waxa uu anigu weli ma aana helin laakiin waxaa laga sheegaya waa wax badan waay soo ma jeed cabdullaahina waanba la yaaba waxa weeye sida ninkaasu qabyaalada bahashu siday ku ahayd maba moodayninba in maaragtay yani nin darajadaas gaaray inuu saa ku yahay wax walba qabiil ku fasiraya wax walba qabiil ku fasir waa khatar waay marka yani marka dadku marka buugaadna kutubtaanaan akrin marka waxaan is yidhi codkaana roon ay dhegaysanayaan codkaan ku gaarsiiyaan is marka haddii marka qalad loo fahmana aniga waxa weeyaan waxa weeye abkii baa yidhi tubtina waa karaa haddii maaragtay iga xumaatana aniga waa karaa inaan idhaahdo raalli ha laga noqdo alxamdulilah oo waxa weeye isma kibriyo haddii qalad la iga tirsado iyadoo xataa waaragtay maalin oo odayaalka waayaha xoogaa maaragtay anigu wax ka tirsanayay aan maalin maaragtay aan la kulmo markaasaan idhi ninku waxaa fiican tolkiisa hadduu xataa ay maarata iyaga ka khaldan yihiin inuu raalli geliyaa fiicana dhah aaday warkaas ay u jeclaystay marka waa run xataa haddii oo maaragtay bahalkii maxay ahayd waxba iga dhibi mayso aniga waxba iga dhibi mayso waxba iga dhibi mayso inaan idhaahdo hal raalli ahaa waxaan idin leeyahay markiina waa ku daro warkan waa ku daro horna waa uga daray gadaalna waa uga daray marka waxa weeyaan calaa kulli xaal waxa weeyaan warkaas laakiin waa war aan yani ugu talagelay yani xanuunka inuu leeyahay waa garanaya xanuunka waa leeyahay sax waaye weliba meesha maaragtay aan abtiyaalka iyo odoga iyo abaalkii gabdhaha iyo markii aan uga hadlay iyo guurka iyo war xanuun way leedahay sax waaye laakiin waa ku talagalay sabab waxda weeyaan maaragtay waa cilay jirtay waa in la saxa u baahan cilay jirtay waaye waa in la saxa u baahan soomaalida dhan in laga saxa u baahan weliba waxaan iska iloobay xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam ibnu ukhti lqowmi minhum uu dhahay xadiidkaasaad iska ilaaba haddeeraan ku daraya in ukhti lqowmi minhum waa waxa weeyaan xadiidkaas hala hirgeli oo kulligiina hirgeli kulligiina hala hirgeli waxa weeyaan maaragtay yani inay caruurtaadii colaadii gasho oo khatar waay dadka markaasaa la fahmaa marka dadkii la coloobo waay marka ciladii soo baxaysa marka cilada soo baxaysa waa markaas waay waa markii la coloobo waay markii la nabadda iska yahay maxaa maaragtay waa la isdhex jooga laakiin markii la coloobay soo baxaysa cilada marka in ukhtul qowmi minhum waa mid maaragtay ninka la yidhaha cumar xaaji aan maaragtay kula dooday ilaa hadda margaxaanku igu qadariyaan waay oo weliba kaga adkaaday oo ilaa yowmina haada igu qadariyaan oo halkan xataa igu yimaadeen sumujeed marka nimay maaragtay dadka sidaa loo dhaafo dadka hana la isi saxo ayana hadda waxa weeyaan xumaantiin maaragtay igumana jirto weligeena ima gelin kuwaan maaragtay qaraabada aan nahay waxaan ku yidhi adinkaa maaragtay yani adinkaa kiis idinku jiraan kiiskiini aad igula galgalanaysaan baan ku dhahay yani waxaan sheegaya kiiskii habargidirta yaamgaalan sheegaya ama mudlood aan sheegaya marka igula galgalanaan anigu kumana jirin mana maaragtay mana idinku raacsanayn kiiskaasa idinku jiraan markaas waxaad is leedihiin balaayo wadaadkaan idinku soo furayaa mar kale maya aniga ciddaana ay xigtaan waanay fahmayaan iga leex soo ma jeedi marka waa saas niman yahow maaragtay yani kiiska haddii maaragtay qalad fahm laga fahmayna laga raalli ahaado haddii sidaan ugu talagalay uu yahana hala soxo ilaahayna hana wada soxo kulligana insha allahu tacaala kulliganana allahna wada soxo ilaahay diintayda nala soo celi diintana ha lagu soxo aan ku wada diintana ilaahayna siiyana aan usoo noqono aan iyadana isku xukunno aan iyada ku dhaqanno mujtamac hadday tahay iyo maarata reer guriga bahalka maxay ahayd usra hadday tahay guri hadday tahay iyo nin caruurtiisa zawjadiis hadday tahay iyo hadday dawlad tahay iyo hadday maarata qabiil tahay iyo kulli waxaasoo dhan iyadii ilaahay aan u noqono haddii kale waa la kala antalwaahaya oo khatar weyn waaye mar kalaan ka hadli doona intaasaan maanta ku talagalay ilaahay maaragtay ana wanaajiyo kulligana
lahna wanaajiyo kulligana marka leen maaragtay waxa weeyaan ha laga raali ahaado sababta waxa weeyaan xumaan laguma talagelin maaragtay laakiin wanaagaas waa wanaag ahaan ugu talagalay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa sidii wanaagga aan ugu talagalay inuu ka dhashaan rajaynayaa waana aqaanaa waxa weeyaan waxaan kelimaadii aan dad ilaahay u iraahdo sida badanaaba waa ku dhibtoodahan idhaahdaa laakiin ilaahay waa ii wanaajiyey marka taasna waa taasaan idinkaga tegaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu